بسم الله الرحمن الرحيم أرثر عادي هذا ما سنتهي إن حالة رئيس الوزراء نور عد عادي هذا يؤونك سنتهي وحان فيلا إن برشة الصومالية دي لسعت وحنسيهي أو عسبتال كجرو مقالة لندن مركا هالكاس اللي قد بيبايو حالة دي سنة هدا أي تهي حالة دقن مع رئيس الوزراء نور عد وكل برضو ودن كاس مارت مقالة لندن ودقن يهي marka waxaa ku qabsaday cudurkan hadda musiibada oo maaragtay adduunyada ku faafaya oo loo yaqaano coronavirus marka bacdama uu qof waaweyn yahay oo u nugul yahay ayaa isla markiiba la geeyay isbitaalka xaaladiisana hadda qofkii dadka cudurkan ka warhayo marna kor u aadaa marna hoos u aadaa marka laakiin uu ka soo gudbo xaaladihii adkaa haddana wuxuu ku jiraa qaabkii maaragtay xaaladihii uu maaragtay uu kor u soo kacay daraad xaaladdu ahaa waa ka wanaagsan yahay shalay maanta waa ka sii wanaagsan yahay ilaahayna qadartiisana waxay ku jirtaa allah subxaanahu watacaala maaragtay gacantiisa waqtigiisuna sugaa laakiin hadda horumar fiican uu sameynaya waxaana ka codsanaya bulshada soomaaliyeed meel walba ay joogto inay usoo duceeyaan in ilaahay culayska uu ka qaado gormay ahayd markii ugu horreysay oo ra-iisul wasaaraha lagu arkay in cudurkana uu qabo anigu kolleyba xamaraan joogaa xasuusteydana kolleyba hadda korka ma hayo laakiin saan kuu sheegay adigu ilaa 8 maalmood ugu badnaan ka hor waayo isbuuc waxaan u malaynaa isbuucii talaadadiisa in lagu arkaan jeclahay isbuuc lasoo dhaafay talaadadiisa ma jireen xanuuno kale oo aabba horey uu qabay marka laga soo tago cudurka imika ku dhacay ee corona maya xoogaa sokorna waa qaba laakiin sokortiisa ma ahayn mid insulinka lagu controlo wuxuu u qaadanaya tablets iyo waxaa xanuunaysay sinta macnaha midigta ah halkaasoo daawo ugu socotay labadaas condition ayaa jiray ugu dambeyn waxaan jeclaan lahaa waxaa jira warar been abuura oo la faafiyey oo aan ku habboonayn maaragtay saxaafadda oo dad maaragtay baraha bulshada ay aada u wareejiyeen marka waxaan aada u jeclaan lahaa aan aada uga codsanayaa maarkin oo annagaa joogna heladiisaa joogta source meesha laga qaato macluumaadkana waa dadka helada ugu sokeeya aniga xamaraan joogaa waxaan jeclahay aan ogahayna maaragtay warbaahinta badankeed ayadoo xamar joogta ayay haddana qaarkood maaragtay ay sii faafiyeen marka fadlan haddii loo baahdo hubin annagaa diyaar u ah maaha nuur cadde aabahayo keliya maaha waa mas-uul soomaali ka dhexeeya waxaana diyaar u ahay wixii macluumaada inaan la qaybsado wixii soo baxo si ay u walwalayaan caawa ayaan arkay markii maaragtay wararka beenta la faafiyey reactionka ay ka sameeyeen iyo xiriirka ay la soo sameeyeen marka aada ugu mahadsan yihin shacabka soomaaliyeed sida maaragtay inay uga danqadeen waana ugu mahad celinaa ha isdejiyaan annaga ayaa maaragtay idinla wadaagayna